بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ السلام دمان والله الصوماليات أدونك تعالي تسكر جوجا خاصة كوا كترسن شركة أون باسيف أساسيات شودا iyo kuwa nagu soo biiri doona iyo qof walba videogan daawad doonta soo dhawaada walaalayaal maanta waxaan u duubayaa videogan inaan idinla wadaago fursadda qaaliga ah ee on passive waxa ay tahay maadaama dad badan oo walaalayaal ah oo ka tirsan shirkadda ay leeyihiin maaragtay qaabkii loo sharaxi lahayd dadka ay la wadaagayaan iyo su'aalo badan weydiinayaan waxaan isiri maaragtay inay wanaagsan tahay in videogan aad dubto sharaxaad yaroo guud in aan maaragtay idinka siiyo shirkadda on passive sida aad arkaysaanba website-ka on passive waa kana qofkii luqadda ingiriiska taqaano luqadda soomaaligana waad u bedeli kartaa mar walba meel laga bedelo leeyahay language-ka marka on passive www.onpassive.com markaasaa magaceeda aad u jeedaan onpassive.com haddaa qorto waa kana intaa ku soo baxaysa marka waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo marka ugu horeysa ka hadlo on passive maxay tahay maxay ka ganacsataa sidee ay adiga muhiim kugu tahay inaad kusoo biirto iyo maxaa ka faa'iideysaa iyo ulujeedada oo loo sameeyey marka horeba ase company ahaan ninka sameynaya sababta uu sameeyey inaan saddexdaas qayb aan u kala dhigayaa marka on passive waa IT company information technology with artificial intelligence machine learning artificial intelligence waxa leedahay aqliga macmalka ah AI iyo machine learning oo robotic machine learning ah waa IT company software waaye waxay ka shaqeysaa software as a service waxa la dhahayo service ay sameysaa oo servicekaas oo ay isticmaalayaan kambaniyasha waaweyn iyo kuwa yaryar hay-adaha dowladda jaamacadaha isbitaalada meel walba oo bini'aadam ka shaqeeyo ama ha noqoto private ama ha noqoto public ama ha noqoto mid dowladeed ama ururo caalami ama NGO ha noqoto waxaa la isticmaalaa software digital saa la isticmaalaa marka on passive waxay iibinaysaa horta waa noocaas waxaa la soo bilaabay 2018 August ilaa hadda way socotaa software-ku kulley wax sahlan ma aha laakiin muhiimadda loo sameynayay anoo gadaal ka sheegi doono haddana waxaan ognahay technology horta adduunku maanta technology u socdaa meel walbo la aadayo wax walba technology ku dhamaanayaan waqtiyadii aan ogeynay oo xataa taleefanka wasaaradda boostada loo aadi jiray hadda waa aragta qofka aragta adeed maad ku wacaysaa marka technology sideedaba inay hore u socoto mooyaane way soo kororto mooyaane wax ma dhibayso okay company-gan waxaa aasaasaya nin la yidhahdo Ashraf Mufarax nin runtii waxa waaye cajiib ah ulajeedada waan ka sheekay doonaa 2018kii August Ashraf Mufarax waa nin America uu degan yahay Maraykan Palestinian American waaye wuxuu degan yahay Florida gobolka Florida magaalada Orlando uu degan yahay waa xaasle oo laba caruur uu leeyahay Yusuf iyo Cumar la yiraahdo runtii ninkan waa nin jaamici ah master degree of IT isla markaasna waa nin maaragtay multimillionaire ah wuxuu kasoo shaqeeyay 25 sano ayuu wuxuu kusoo dhex jiray internetka iyo maaragtay sida ay u shaqeyso oo looga sameeyo lacag kambaniyal badan oo usoo kala kiciyey runtii laakiin uu kasoo xanaaqay dhaqankooda iyo qaabka ay maaragtay u dhaqmayaan waana sababta keentay inuu company-gan alifo uu sameeyo kuna dhaqaaqo 5 sano ka hor bilaabidiisa haddana gabagaba sababaha keena waxay radan ka taabto inuu company-yaasha kasoo xanaaqo waxa kamid ahayd waxaan ognahay internetka lacag waa laga sameeyaa laakiin qof walba kama sameyn karo sababtuna waxay tahay xirfadii teknolojiyadii computer savvy inuu qofku luqadda yaqaano ingiriiska ah inuu computer iyo technology ku fiican yahay inuu maaragtay marketing ku fiican yahay wax iibgeeyo yaqaano intaasoo la isku dardaray iyo runtii hawl badan ayay u baahan tahay qof walba huba marka horumarka ma sameyn karo marka waxaa dhacday in dad badan lagu soo dhiirigeliyay inay yimaadiin you make money soo gal sanway lacag ka sameynay waxaas laakiin markii meesha ay tagaan runtii wuxuu ogaada kambaniyashii uu soo kala kiciyay in 3% dadka u sarsareeya kambaniga kaliya ay lacag sameeyaan laakiin dadka intooda badan ee soo galaahi ay ku hungoobaan aniga ugu dhacday
noocyo badan oo ganacsiyaal aan soo galay oon kusoo hungoobay sababta keentana anigu inaanan luuqadda aqoonin ama xirfadda lahayn ama aan magaalaka hadalka aqoonin iyo iibgeynta laakiin waxay aheeday qof walba oo huba dee dadkii markaad adigu wax la wadaagtid anigu ummadda soomaaliyeed aan la wadaagaya laakiin dadku wixii aad samayso ma samayn karaan marka hadduu qofku wixii adiga aad samaynayso uusan samayn karin si walbaba ha ku timaadee ama luuqaddu ha dhibto ama xirfaddii ha dhibto ama fagaaraka hadalka ha aqoon waayo wax uunbaa cariiri ku naqanaya ku adkaynaya uu ka niyad jabaya ma samayn karo wixii aad samaysay adigiina hore uma socotid ashraf mafarax marka wuxuu soo arkay in 3% dadkaas ay kambaniga bilaabay ama iyagu ulajeedada lahaay inay lacag ka sameeyaan kaliya ay wax gaaraan laakiin 97% kaleeto ay go'aamayaan wuxuu yiri marka sideen ku samayn karaa kambani aan ku xireynin qofka da'diisa cilmigiisa aqoontiisa xirfadiisa teknolojiyadeed aan ku xireynin hadba heerka uu darajo aqoon ka gaaray hooyo maamo oday dhalinyaro qof walba oo soo gala hubo wax ka sameyn karo sidii ku kar waa in automation laga dhigaa marka wax walba waa in automation laga dhigaa automation waxa la yiraahdaa waxa isku wada iibgeyntii salkii kala dhicintii wax walba hubo automation si looga dhigaa kambanigan fikirkiisa keenay dad baa ku raacay ilaa ay 4,000 3,000 5,000 qof ay ahayd hore u yaqiin oo kala dhacsiiyay laba cajalo duubay oo maaragtay oo cod oo u sheegayo dadku inay maaragtay fikirkiisaas iyo maaragtay hamigiisaas iyo visionka uu arkayo inay la qaataan dadaa ku biiray dadkii 2018 ilaa hadda aniga waxaan ku biiray 2021 maarso 3 aan ku biiray markaan arka runtii waa ku farxay markii waxaan ogaaday waxa la iibinayaa inay wax qiimo leh waxa la iibinayo inaysan ahayn wax aniga baabuur iyo diyaarad la soo saarayo aniga aan qof ku qasbayo wixii wax muuqda maaha waa wax digital kambanigan asiga iibgeynaya asiga xayisiinaya website ku sameeyna productiga subscribe ku sameynaysa bisha ugu horeysa lacag dhiibaysa $50 miya $100 miya $200 miya ma ogin exactly waxay tahay ma naqa doono productiga ugu horeysa mar dhow ayaa insha Allah suuqa la keeni doona oo weli uusan iibgeynin wax laakiin waa kambani wadada ku soo socda oo aan ka rajayno inuu mustaqbalkeena wax ka bedelo marka ashurta waa kaas kambaniguna waa kambani noocaas oo ka ganacsada digital product oo haddaba sida aad u jeedaan waa kana meeshaan register oo leeyahay u jeedin on passive watana waxa yar kor u qaado productiga waxa u soo horeysa oo connectigaasa u soo horeeya oo trackerkaasa ku xiga way badan yihiin haddii aan inta kana productigaasa u taabto hope inaa u jeedin O connect, O tracker, O verify, O mail, O net, O trim, O yes. iyo kuwa kale fara badan oo hadda aan meeshan ku jirin sida gadaashiida ka muuqda sawirka u jeedin marka aniga ay fiirsan waxaad u jeedin inay ku jiraan ay ka maqan yihiin meeshan O staff, O academy, O desk, O chat, oo tracker iyo kuwa kale oo badan oo hadda aan inta ku jirin anigana amash ka muuqan oo domain ku jiro oo walada ku jiro marka muhiimaddu waxay tahay kambanigan wuxuu ganacsanayaa qalabkan waa IT company waad ku soo biiraysaa waa iska register gareynaysaa magacayga horta waa Cabdi Cali Sow Cabdi Xakiin Muxuddin Cali Sow dad hore isu arkin oo aqoonina waxa hilmaamay inaan isakiin sheego waxaan ka tirsanahay association on passive waxaan bilaabay inaan on passive ugu yeero dadka muddo ilaa hadda 2 sano sina sheegayaba Soomaali badan oo walaalahay soo galeen ma sha Allah aad ugu faraxsanahay runtii oo aad ugu faraxsan meesha wax u socdaan la socdaan on passive heerka ay marayso iyo kuwa kale badan oo hadda soo galgalaya waana sababta video aan u duubayo inay u saxasho qofka walaalka ah asagoo ku cusub oo hadda weli baranaya inuu walaalka la sii share gareeyo asigoo videogan la wadaagayo marka videogan dib soo gaaro oo aad daawanaysid muhiimaddu waxay tahay haddii walaal kula share gareeyo oo yiri macnaha kambanigan soo baxaysan sawaayo linkina uu ku soo diro videoga marka ku qanacdid
linkigiisa iska diiwaan gale haddii aad meel kaleeto oo social media aad ku aragtay oo qofna uusan kula wadaagina aniga ayaa linkigayga YouTube-kan hoos dhigaayo kayga ka soo gal muhiimaddu waxay tahay inaad soo geshid groupyo waxa jira WhatsApp waxa lagu darayaa tartiibtiiba u baranaysa marka aan ku noqday on passive horta waa noocaas runtii waa campaign asigoo wali wax iib geynin oo aan suuqa imaanin runtii ganacsi meesha laga bilaabo meesha ugu sareysa ka bilaabay sababtuna waxay tahay ciyaarihii adduunka hadda la soo dhaafay ee World Cup FIFA كمبانيgan wuxuu ka mid ahaa kambaniyashii la xayeysiinay alaabtiisa oo dhinac istaagay kambaniyaal boqolaal sano soo jira sida Visa, Mastercard, Hyundai, Google, you call it dhowr kambani oo aan hadda soo koobi karin ayuu ka mid ahaa is xayeysiinay hadda waa bilow waa start up la kambaniyasha hadda soo baxayo oo aan wali suuqa imaanin asasi xayeysiinay wuxuu laba dabaq ku leeyahay sarta ugu dheer برج خليفة أو دبي كتال طبقة كونتينيو كواد طبقة صدري أفراد on passive اسكال إيجار معها كمبنيال بدل أيوة حيكون رياضان مركي العكس ما يعني جابك بوحدان إني تقان ماشي عسوكالات on passive already ماشي أسريسك بلا وسكراتك هل هايسكي نبو حويرها we go to the top ماشي أسريسك top كمر كانت تقول top كسي سريسك هذا waxa kale oo jira train station la yiraahdo Al-Safa cid Dubai tagta taqaano meel waxa jirta la dhahayo Dubai Internet City oo ay degan yihiin maaragtay maadaama wadanka dowladda United Arab Emirates marka hore oil iyo ka ganacsi jirtay markii dambe real estate ay u bedeshay ganacsigeeda hadda ganacsigeeda waxay focus ka saaraysaa teknolojiyada cusub AI artificial intelligence iyo aqalada macmalka ah iyo machine learning teknolojiyada marka kambaniyasha teknolojiyada adduunka Cisco, Adobe, Microsoft, Google, Facebook, جدّ حفيز كلية. مركب ماله حاجة تلاقيها دبي إنترنت سيتي، أو كتالة دبي إحدى حافظي رقم واي، وحفيز كلية كمبنيات أسوأين عيدين شيء. ترين ستيشن كمركب شغالها شغلت جاية ود جان سي أهول جلان شغالها صباح دودا. ترين ستيشن واحد يجري على الصف. ما عيال بدله وحلو بحي دبي حلو بحي on passive train station dadka shaqaalaha IT-ga maalin walba Dubai inta u socota on passive train station inta u socota on passive train station Google Map ka fiiri macnaha waxaan idinku sheegay sababta xitaa kambanigan ma aha kambani lacag saqiir ah kambani runtii wax badan adduunka ka bedeli doono waaye waa bilow wax walba oo maaragtay waqti ay qaataan 5 sano la soo sameeyay laakiin mar dhow ayuu imaan doonaa dibadda okay haddii aan marka screen share kan aan xogaa inta ka naqdo let me go back to the maarta xafiisyadooda emailha ay ku yaaliin haddaan tagi tagno oo caddayn ku ah mujada وكان ماشي ku yaaliin United States of America وماشي oo degan yahay gobolka Florida India waxa degan kun technology nimanka injineerada oo qalabkan software ka dhisaayo waxay degan yihiin magaalada leedahay Hyderabad waa kaas Hyderabad India Singapore xafiis ku leeyihiin Dubai waa kaas Burj Khalifa kambanigan hadda kasoo mid noqoto oo aad sida aad ku yiraahdo noqdaan waxa tahay nin ganacsada ah oo xafiiskiisu ku yaalo Burj Khalifa Egypt City Nile cusub iyo xafiiskan mar dhow la furay Abu Dhabi xafiis kale laga furay laakiin wali lagu ma soo dirin كمبانيgan qalabkiisa waa kana idin sheegay oo connect oo tracker oo mail oo net oo trim oo es waa shanta product kana ugu soo horeeyo wax la iibinayo kana ku xiga saddexdan kale waa free oo mail waa sida gmail oo kale waa waxaan ognahay oo mail gmail.com yahoo.com hotmail.com kan waa omail.ai kambanigan gudihiisa ma ima kartid wax ma ka ganacsan kartid wax kama iibsan kartid ilaa aad omail samaysto mooyaan waan sida kaliya loogu soo biir onet waa social media network ka fiican Instagram iyo Facebook iyo Snapchat iyo iyagoo dhan markii la isku daro uu ka khatarsan yahay AI oo ku shaqeeya caqliga macmalka ah oo trim waa trim URL linkiyaasha la soo diro ayaa lagu gaabshaa OES waa meesha aad imaad doonto oo suuqa ah oo qalabkan uu yaalo oo laga ganacsan doono waay marka isdiiwaan gelis aad imaad doonto OES waa platform kale to waay marka horta waa kana kambaniga
media center oo leeyahay qofka luqadda ingiriiska taqaana waa fiir kartaa hadda shaqaale waa la doonayaa dad shaqaale haddaa xirfad leedahay IT aad taarabta inaad shaqo ka hesho laakiin ogaa haddaa shaqo ka heshid kama ganacsan kartid contact us meeshan waa login you can log in marka account leedahay inta waa meesha la iska diiwaan geliyo laakiin inta haddaa iska diiwaan geliso company-ga waxaad gelaysaa dadka oo xayeysiinta marka uu samaynayo meeluu gelinaa bot aa la dhahaa dadkaas diiwaan gashan hadhowto waxaa loo qaybinayaa aasasayaasha annaga ayaa la wada hoos dhigayaa marka waxaa lagu qaatay intii qof gaal ah ama ajnabi ah aadan aqoonin lagu hoos dhigi lahaa inta iska diiwaan geliso qofkaasaa lagu hoos dhigaa laakiin haddii walaal linki uu kusoo diro iska diiwaan gelisid walaalkaasaa aad maaragtay ku tusi doono marka muhiimaddu waxay tahay horta IT waa kaasaa maxaa adig ka faa'iiday marka waxaa ka faa'iidaysaa qalabkan ugu horreeya maalintii la keeno oo aan sugoohayno hadda waqtigan la joogo mar dhow imaan doono waan iibsanaynaa 100 miya 150 miya 80 miya ma naqaano walaaba uu yahayba waa iibsanaynaa markaan iibsano company-gaanu website oo noo sameynaa xayeysiinoo ku diraa adduunyada internetka suuqa adduunka internetka u diraa ciddii iibsato asigaa la xiriiraayo asigaa email u diraayo asigaa waxyaabaha ay tabanayaan ama ay rabaan asigaa wax walba samaynayo teamkaaga uu ka dhigaayo customerkaaga uu ka dhigaa bil walba lacagtoo ka qaadaa lacagta uu ka qaado qayb kaa siinaa qaybna asaa qaadanaa very simple waa wax kaleeto iyo iska dabar wareeg iyo lacag la qasaaraayo iyo inta ku migeli iyo waa gubati iyo waa heeba maxaas ma jirto waa alaab lamaamayso jabi mayso expire naqamayso waa digital product inay sii qurxanaato oo la sameeyo mooyaane weligeed ilaheed ma dhammaanayso adiga ma samaynin adiga sameey ma doontid hadduu halaawto iibgey maysid qofka iibsada shaqo kumalid ina taqaana qasab ma aha kambanigana waxaasoo dhan xalinaya waa sababta aan idin ilaaha dootay automation qof walboo soo gala hooyadii suuqa joogta odagii howlgab iska naqday dhalinyaradii jaamacad ka soo baxday shaqo la'aana darbiyada fadhiso maamooyinka single motherka ee qurbaha ku wareersan oo maaragtay maalin walba nololmaalmeedka raacdaynaya rafaadka adduunka bini'aadanka on passive waxaa loo samaynayaa qofka bini'aadanka inuu siiyo xorriyadda lacagta iyo xorriyadda waqtiga ashraf mafarax uleejeedada uu kambanigan u samaynayo ayaa waxay tahay hadaladiisa waxaa ka mid ahayd dhowr marar aan dhegeystanay runtii aniga 2 sano iyo barka aan kusoo jiray waxyaalaha aan ka faa'iiday ma cadadnaa walaa xisaaban qofka bini'aadanka waxa waaye maskaxdiisa cajiib waaye laakiin maskaxdii inay fikirto waxay u baahan tahay ay wax alifto ama ay wax hadaf keento waxa ka horeysa horta waqti ma haysa waqtigii waxaan kula dagaalamaynaa gulfis nolol maalmeed lacag raadin how to pay the bill meelaa ku xayiran tahay adiga dhanba xaaraana lagugu haystaa ama shaqay ama shaqaynin waa xayiran tahay on passive waxay ku siinaysaa xorriyadda waqtiga iyo xorriyadda lacagta adduunka wax ka fiican oo la helo male waqtigaaga oo free ah u tahay iyo mushaakil lacageed oo kaa baxay haddaa labada isku heshid bini'aadanku wuxuu helayaa caafimaad iyo nabad iyo maskax fiican iyo wax badan oo alifo ujeedada u sameyn waxay tahay 1,400,000 oo qof oo asaasayaal ah oo kambanigan arkay fishinkiisa iyo aragtidiisa fog arkay ee ku soo biiray intii aan la xirin sanadka hore la xiray June 26 la xiray asaasayaasha sanad kadib dadkii asaasayaasha ayaa waxaa la siiyay linkigaas waayo dadka aan hadda Soomaalida leenahay ku soo biira kambanigan inta aan hadhowto gaalo iyo adduunka oo dhan uusan arkin oo aan idinkaga hormarin waxaan rabnaa inaan naqatiin dadka ugu horeeya Soomaalida cid uga baaha badan ma jirto rafaad baa na haysta dowlad la'aan baa na haysata dhibaataan soo marnay sidaa daraaddeed waa in bini'aadanku markuu xorriyadda lacagta xorriyadda waqtiga hore waddan nabada iyo dad nabada iyo maskax nabadahan helaynaa marka hadhowto markuu soo baxo dadka luuqadaha yaqaano ama maaragtay aragtida fog leh ayaa way arkayaan waa laga soo buuxsamayaa hadda intay goor tahay ayaan rabnaa in Soomaaliya intii soo gali karto nuska hadday soo gasho alxamdulillah okay markaad soo gasho horta YouTube-kan waxaan ka daawanaysid ana iskale waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid ma aha in aniga YouTuber ahay ma aha aniga inaan subscribe iyo lacag ka raadinayo Google YouTube aniga meel fiican joogaa kambaniga adduunka uu lacag samaynta badan ayaan aniga Soomaali la wadaago aniguna ka tirsana marka horta u qaadan YouTube subscribe aniga
waxa kale oo ugu baahanaa kaliya inuu mo subscribe oo leeyahay mo Soomaalidu ay waxaan ogaanayso cajalladan kaliya hadii la share gareeyo waa la ogaana wax muhiimadu waxay tahay in cod dheer lagu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed inay ka soo mid noqdaan kambaniga faa'iido ugu jirta huna waxay tahay waa G for Jack because cryptocurrency maaha maxaa leedahay kii xumaaya lacagta la sarifayo qalaad ma aha wax dhacaya wax kordhaya ma aha wax la luminaya ma aha waa alaab weligeed oo leyso qataraho technology ah hal maraad iibsanaysaa weligaa dambe jeebkaaga lacag kama bixinaysid hadba kii cusub ay keenaan iibsanaysaa alaabta waa content digital product waay hal mar lama wada keenayo laazim tartiibtiiba loo keenaa kana ugu soo horeysa u sheega oo connect gaanaad iibsanaysaa oo tracker hadba kay iyagu keenaan aad iibsanaysaa sida u kala qiimo badan yihiin sida u kala qurxan yihiin sida loo kala iibso og yahay baahiyada kala duwan oo loo qabo waxaas gadaalan ka ogaa doonaa laakiin muhiimadu waxay tahay wax walba oo baasif keento waad iibsanay iyaga ku iibkeenay iyaga lacag ka qaaday wax walba taas oo soo sheegay Ashraf Mufarax adan ka sheekayto goobta warta waa nin qalbi wanaagsan waa ninka kaliya taagan wuxuu yiri hadda koor Allah subhanahu wa ta'ala qalbiga asaa'um adduunka waxa ku nool asaa'um jinni insi iyo xayawaan asaa'um ay xiriir dhul uma weynin oo dhahay inuu qof walba habo waxay rabtasiis hase yeeshee dad gooniya waana imtixaan adduunku dad gooniya oo lagu imtixaamayo jeebka lacagta loo geliyo iyaguna jeebka ku shubteen marka wuxuu yiri waxaan tusaynaa kambaniyaasha waaweyn ama dadka taajiriinta ah ee adduunka billions dollars ka haysta waxaan tusaynaa in la share gareeyo taajirnimada inay wax badan ka bedelayso adduunka taajirnimada la share gareeyahu waxay keenaysaa nabad waxay keenaysaa caafimaad waxay keenaysaa adduunyo nabada waxay dhameynaysaa dagaalka iyo maaragtay waxyaabaha ka jira adduunka oo dadku isku dagaalayaan dawladaha rafaadka sameynaayo waxaa soo dhan ayay waxay keenaysaa haddii qof walba hubo uu helo nolol faraxad leh lacag leh oo waqti xor leh in ay adduunku nabad noqonaan waxa kale uu yiri Ashraf Mufarax inta aan 100 milyan ka dhima lahaa adduunka horta kambanigan looma sameeyno hayo in uu noqdo kambaniyaasha caadiga oo taqaanin ganacsi walba oo la sameeyo qofku wuxuu sameeyaa inuu iska taajir taajirnimo hana qabto wuxuu taajirnimadu waa kala nooc iyada kala badan qofna nolol degan uu haystaa meel dhaxaad qol wuxuu haystaa mid xogaa yara saraa mid wuxuu haystaa mid fooq aqli oo lacagtiba uu meel kala geeyo oo diyaar wax la jooga dayax gacmeed iyo diyaarada lagu socdo Ashraf Mufarax uma sameeyno hayo ganacsigan in uu noqdo ninka adduunka ugu taajirsan shaki kuma jiro inuu noqonayo ninka adduunka ugu taajirsan maanta ninka adduunka ugu taajirsan waa Elon Musk waxba kama tuugayo Ashraf Mufarax inuu Elon Musk uu ka hormaro laakiin ha ka yaabe wuxuu yiri inta aan 100 milyan oo dollar account-ka ku jirto aan ka dhimalaa waxaan ka dhimanayaa hawdhaa 100 milyan oo qofood oo milyaneer ah 100 milyan oo qofood oo milyaneer ah qof bini aadam oo ku fikraya adduunka ku yiri marka adiga muxuu ka rabaa marka Ashraf Mufarax marka uu ka rabaa marka ku siiyo xorriyada lacagta xorriyada waqtiga waa inaan sheegaa talbirkee dadka Soomaalida inay fikirka on passive ku soo biiraano muxumo lacag ka sameeyaan muxumo noloshooda iyo wixii ay doonayaan laakiin hadhowtu waxaan diidayaa hadaan hadda raacin hadhowtu waxaan diidayaa inay si qalad u fahmaan inay daacad aanu ka dhacdo in ay si xun u isticmaalaan lacagta iyo waxa la sii doono Ashraf Mufarax sababta oo waxaan u sameeyay adigoon waxba sameynin oo kaaga fujinayo maaragtay ceejada dunta lagaga dhigan yahay ee rafaadka ku haysto wuxuu kaaga fujinayaa waxay tahay marka aad intaas hesho inaad qof bini aadan oo adduunka ku nool adiguna wixii lagu sameeyay aad ku sameyso walaalka ku dhow ama ceel qodaya ama jid fashaya ama isbitaal dhalaanka iyo carruurta sameysaya ama maaragtay walaal agoona ciyaal agoona maaragtay meel ku xareysaya waa in aad qof bini aadan sida noloshooda loo bedelo adigana aad maaragtay wax uga bedeshaa dad uga baahan ummadda Soomaaliyeed oo rafaad oo haystana ma jirto waxaan rajaynayaa Soomaali badan oo ka tirsan iyo kuwa badan oo nagu soo biiri doono in aan noqon doono maaragtay dhaqdhaqaaq runtii Soomaali u horseeda horumar Soomaali u horseeda dhul nabada dad nabada oo caafimaad qaba u horseeda inaan noqon doono ayaan rajaynayaa haddii Ilaahay cimri iyo calaf nagu gaarsiiyo orto on passive
نواتاس وكمبانيga noocaasa waad ku soo biiraysaa meesha aan joognaad imaanaysaa walaalkii linkigan kula wadaagay linkigiisa iska diiwaan gelinaa haddii aan qofna kula wadaagin oo aad social media soo aragtayna waxaad iska diiwaan gelinaysaa kayga youtube-kaygan iska dawra subscribe waad ku samaynaysaa share waad ku samaynaysaa si uu dad badan oo Soomaaliyeed u gaaro muhiimadna waa intaas dad badan oo waxa jiro 200 oo wadan ay maartay on passive dadka ku jira oo ay ka tirsan yihiin cadaan iyo madow leh muslim iyo gaal leh diin walba leh dhaqan walba leh muhiimaduna waxay tahay in anagu waxaan nahay asaasayaasha horta waa la xiray 1,400,000 qof waaye laakiin waxaan nahay kambanigan lagama yaabo si fiican u dhigayso waxaan nahay anaga furaha horumarka sida ay on passive ku gaarsii lahayd taajirnimada ay qaybinayso adduunku gaarsii lahayd horta furaheeda anaga waa sababtuna waxay tahay on passive inta cid soo gasho fiir hadda linkigan oo kale markuu qofka uu register dhaho mujada oo emailkii ay soo galo say la company register dhaha company Adidas Toyota United Nations they want to register here because why qalabkan oo rabo inuu isticmaalo horta qalabka idinka ka sheekayna suuqyada way yaalin on passive product-ga ay iibinayso way yaalin suuqyada laakiin kuwan way ka casrisan yihiin AI ku rakiban oo lagu dhisay automation way waa single sign on way marka waxay u fiican yihiin tusaale hadaan u soo qaato say lag adiga waxa doontay suuqaad wax ka doonat waxaan rabtaa dhar caruureed ama dharaad rabtaa dhar arabtaa suuq inaad ka doonato suuqa dharka aade qalab dhismaa rabtaa suuqa qalabka dhismaha aade waxaa rabtaa suuqa oo waxaa rabtaa oo meel laysku qarxiyo saloona tegaysaa waxaa u baahan tahay inaad xoolo soo iibsato maanta xusaa qabtaa suuqa xoolaha tegay qalabkan way yaalin laakiin barbaramka jiro wuxuu yahay hay'adaha dowladda iyo shirkadaha iyo waxa qalabkan isticmaalo oo nolol maalmeedkeeda ku fushado كمبانياش أي وحكة يفسدان 6 ميلو كانوا دوانو كمبانية يفسدان كمباني يقول بإيميلك وقلايان سبسكريبشن سمينايان علابتاس بيش العقال لقا قادا مركي قلايان إيميل قوني وقلايان هذا كان يقبهين إيميل قوني وقلايان هذا كان يقبهين إيميل قوني وقلايان on passive وحي سهل ليسا سوقياشي وقلب كان يلين أي حل من السوق كانت وهل كمباني هل إيميلك وقلاي هل ميلا وحكة قادنا هل العقال لقا قادا boqolkiiba 40 ayay hawshii fududeysay boqolkiiba 50 inta ay meelaha aad lahaayeen horta faa'iidadooda waa taas haddana way ka raqaysantaa markii waxaad arkaysaa kambaniyaal waxan inta soo saara qiimaha ugu sarreeya hadda ka soo qaad Apple oo kale ka soo qaad telefoonkan iPhone-ka aniga aan leeyahay telefoonka mujida iPhone-ka Apple 5 product uu iibshaa waa kambaniga adduunka ugu taajirsan $1 trillion company waa muxuu gadaa Apple wuxuu gadaa phone telefoon gadaa mobile phone oo manuul bedela iPhone 12 13 14 15 ilaa iyo isku soconaa 30 laptop oo gadaa computer iyo desktop saacad iyo geedka dhagaha la gashto iyo I don't think inuu Apple wax kala gado data inuu gado ma ogi oo data storage oo sameeyo ma ogi laakiin macnaa wuxuu gadaahu wax hadda badan oo tira on passive 50 digital product أكره هذا قداشي ده أوجدين صوركي قداشي ده كيالو أوجدين أو ديسك أو كونكت أو ستاف أو كادمي كل جيس $200 billion وسوقيس أو ستاف $30 billion كمباني وسوقية أو حفيزك أو ستاف أو شغال لقوم أو ستاف على شغال لقوم ولا شغال مركز قبتي شن بقول كون وذأبي أيهين ومش هسك الديوان قشيهين مشاركة كل اللي يقول فصح هذا كي مدي كان مغنين أو ستاف وابليكيشن أو تراكر أو تراكر موجودة فلا أرتلع أو تراكر موجودة وجوجل أناليتكس أدفرتايزمنت ويب سايت كاغ ماشي لقى فيرسدي يا تابتي يا ريحي مركو ريحي تلافكو استعمالي ودن كيواي لعقتو استعمالها كارنسيغا waxaan waxa yaqaan dadka marketerska oo digital ka shaqeysta yaqaan
وجوجل اناليتكس بنان كلا دغايا onto the physical location او mail او net وفري marka on passive horta cid walbo oo adduunkan ku nool ayaa soo gelayso boqolaal milyan up to billion people are soo gelayo ama ha u soo galaano digital product-ga ay isticmaalayaan oo free ah sida haddaba ay social media loo isticmaalo ama kambaniyaal iyo dawlado iyo hay'adaha soo galaano oo ha u soo galaano waxaan hal meel la isugu keenay oo qurxan oo raqiis ah oo ku hadda suuqa yaala ka casrisan iyo value-ga iyo qiimaha ay dhibayaan ha u soo galaano oo si ay nolol maalmeedkooda xafiisyadooda ugu fushadaan ha u soo galaano ama annagoo kale taan naqdaan ha u soo galaano inay lacag ka sameeyaan laakiin waxa hubanti ah 10 qofood meel isugu timaado 9 qofood on passive ka tirsan yihiin oo future-ka hadda marka inta aan la gaarin oo aan lagu soo qolqolin ayaan horta hordhaca iyo vision-ka aan aragnay oo aan meel fog wax ka aragnay oo aan soo tijaabino una aragnay inay yihiin wax qiimo leh ayaan horta ummadda Soomaaliyeed la wadaagaynaa marka hadda tahay walaal video-gan daawanaya runtii oo ilaahay ishi tusay dad baan arkaynin oo laga yaabo in 2 3 sano ka bacda on passive fahmaan laakiin hadda tahay walaal video-gan daawada arkay ama walaal kale oo already u sheego u soo diray video-gan iska diiwaan galay link-ga oo ku soo diray hadda tahay mid meel kale ka arkay oo maaragtay YouTube social media lagu share gareeyay ka arka aad tahayna aniga link-gayga iska diiwaan galay YouTube-ka hoostiisa ana dhigi doon insha Allah iska diiwaan galay ku soo bir on passive si aad u hesho xorriyadda lacagta iyo xorriyadda waqtiga farxadna aad ugu noolaato adiga iyo familkaaga وإذا السلام يا ولا ليال أتيك فيديو أنت سوف كيسينا يا مهمته وحيتها on passive معها كلية digital product أشرف مفارحة بينه هذا يحبوا كلو يري digital product كان أوجدان يا digital product كان أوجدان وحير وهذا advertiser وما حي advertiser وحلا هذا راشينكا advertiser waxa la yiraahdaa raashinka oo maaragtay markii oo raashinka marka maqaayada tagto oo raashinka inta lagu keeno maaragtay advertiser kan yarka oo la sii dhadhaminaya maaragtay oo raashinka lagu soo ala dhaha advertiser digital product kan wuxuu yiri waa the beginning bilowga soo gelitaanka suuqa ganacsiga on passive ee ku soo gelaysa waay laakiin wuxuu yiri waxa aan soo wadno oo boqolaal sano laga sheekay doono oo la dhihi doono on passive ka hor iskuulada iyo jaamacadaha lagu dhihi doono adduunka saano ahaa jira on passive ka hor on passive markay tibina saano noqday waa hadal weyn waay product muuqato oo physical ah technology cusub ah oo adduunka si muuqaal ah u bedeli doonto si muuqaal ah oo qof walba dareemi doono إلى ما نقول أشياء قوة ده كور نايك وحمو كوي حمو نايك يا اللي كده بليون دولار لكن كواس كمبنياش هس واحد يبنى يا أبل كحوم كهو شنطة برودكت يبنى أسيجا يبسدو أسيجا جاب كوشب حلقة في الوقف وضع إسكاله ماشان أون باسيف قف تصوح وجي يبسكرتاه مجلس قف أنت أون باسيف ويب سايت كده تماذا كدوتي وشكل عيد بلا واحد مامين أو كونكتي أنت كمبني يماذا أو كونكتي مقدكر وإنه أننا نجتها قف أننا نجمده كجذها كم بينو أسايق أنا ذاك السوق جلاي ونو قيبها artificial intelligence أو قيبها يا ذاك العقد ولا قيبسها فائدة وحسيت لارتي أدي جوني لقاي قتي وكم بينو كوكا أنا قف كوكا أنا شركة كوكا أنا وحي كاسو قلب بشي قيبنا أوقات قيبنا أوكسي وبالله وتاسس كلا في السنة كويحي سوق قال كم بيني كان بقول بليون دولار هذا السوق شو شغاله وحير شغاله كان كديبه ايجار كحفيسيدي كان كديبه على كل حال قرش كجود او مارتي كان بينو انه سن بنك ربسنا غنينا هوبنا canshuuraha dawladahan iska dhiiba iyo xafiisyada ku leeyahay iyo shaybaar yar oo technology waa in hore u sii socotaa wixii xogaa yar oo idina company-ga meel loo dhigayo shaybaar lagu sameeyo wixii ka soo hara wuxuu yiri waxa iska leh aasaasyaasha iyo dadka soo gali doono oo ka ganacsan doono oo aasaasyaasha ka imaanaya dhinacooda qaybsanayo xaqiiqo on passive waxay noqonaysaa company-ga adduunka ugu lacag samaynta badan iga qorane meel ku qor fahmt company-ga adduunka
ugu lacag samaynta badan marka walaalayaal hadal badan han ma buuxshaa la yiri runtii aadan ugu faraxsanahay meesha aan joogno waa kana fiir waxaan robotica mujeda look this website ilaan kugu dhashay every day isbedesha ida mujeda kana oo trackerka ID sheegay waa kana meesha waa tii kartaa website kan tag aqri hada ingiriiska taqaanid luqadda taxta oo bedeli kartaa carabi talyaani wax walba ku waa kana oo tracker ajiiba banaanka la dhigaa Google banaanka la dhigaa advertisement analytics ka O-Tracker is a comprehensive AI-powered web analytics solution engineering to enable you to optimize website performance with its cutting-edge technology, powerful features. O-Tracker provides you with the ability to make data-driven decisions to build a better digital experience for your customers, reduce bounce rates, boost conversions, and improve UX. See beyond the data with O-Tracker. Ajib. Marka walaalayaal muhiimaddu waxay tahay qofka bani aadamka user behavior, detailed geolocations, akana su'aalo iyo jawaabo xafiisyada waa kuwaana United States, India, Singapore, Dubai, Egypt. Burj Khalifa mujeda nabawar Sheikh Mohammed bin Rashid Pulova on passive Singapore watana meesha waa meesha IT teknolojiyada samaynayo oo qalabkan dhisayo meesha ay joogaan waa kun engineer kol laafaya ayaa ku mashquulsan waxa inay barba waana diyaar xafiiska cusub ee Egypt Nile marka walaalayaal hadal badan haan ma buuxsho muhiimaddu waxay tahay oo videoga ugu tala galay walaalaha kale tala share gareynaa on passive maxay tahay on passive maxaan ka sameynaa on passive waa IT company qalabkan teknolojiyada gadisa ma aha kor iyo saliid ma aha dhar iyo wax lamida waa qalab casriya adigu iibgeemis waa lagu iibgeena website iyo xayeysiinta iyaga ku sameynaa iyaga customer la hadlayo waa laba xagga saas waa wixii la iibgeeyo wixii qaybta kaaga soo aado kamariga qaybta qadan qayb kale waa lagu siinaa muhiimaddu waxay tahay inay soo gash qalabkan kii diyaaraho la keenay iibsatid inta ka dambayso waa jiif waa jaq marka aad taajir noqoto oo lacag samaysano wax laga rabaa in qof bini aadana sida adiga xeejada lagaaga fujiyo xeejada ugu fujis on passive value-geeda qiimaheeda intaas waaye soo dhawaada walaalayaal haddii walaalkii oo kula share gareysada hore u sheegaba linkigiisa iska diiwaan gali si aad u noqotid teamkiisa u noqotid haddii uusan walaal kula wadaagin oo meelaha ku aragtana YouTube-kan channel-kan subscribe saar si Soomaali badan u aad u share garee linkigeena iska diiwaan gali haddii asan qofku soo cesbo wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh